بسم الله الرحمن الرحيم. حماس oo si buuxda u cadeysay mowqifkeeda ku aadan ciidamada caalamiga ah ee lagu wado in la geeyo Mareyka Gaza iyo doorkooda. Ku dhawaad 15 muwaadiniin Masaari ah oo ku geeriyooday dooni tahriib oo ku degtay xeebaha dalka Greega. Laanta sirdoonka Israa'iil ee Shin Bet oo soo saartay digniin ku aadan falal afduub oo Israa'iiliyiinta loogu geysto gudaha iyo dibadda. Midowga Yurub oo isku dhaarsaday in ay dhufays ka qotaan xadka bari ee Ruushka ay leeyihiin sababo la xiriira cabsi laga qabo Putin. Israa'iil oo ka walaacsan qorshaha heshiis ballaaran oo Mareykanku diyaaradaha dagaalka ee casriga kaga iibinayo dalka Qatar. Sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay rakaab aan loogu talagelin inuu diyaaradda raaco isla markaasna aan wadan tigid baasaboor iyo fiisa midna ayaa lagu dhex arkay mid ka mid ah dayuuradaha shirkadda diyaaradaha ee KLM ee dalka Holland. Haddaba muxuu yahay rakaabkani? Sheeko qosol leh oo yaab leh ayaan idin haynaa. Dhammaan wararkan iyo qodobo kale ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha war la xiriira dad tahriibayaal oo Masaari ay ka mid tahay oo ku geeriyooday xeebaha waddanka Greega. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa shaacisay in 14 muwaadin oo Masaari ah ay ku geeriyoodeen xeebaha jasiiradda Crete ee dalka Greega kadib markii ay la qaraqatay dooni ay ku tahriibayeen. Wasaaraddu war-saxaafadeedkeeda waxay ku sheegtay in ay si dhow ula socoto dhacdada doonta tahriibta ahayd oo 7 Diseembar ka baxday mid ka mid ah dalalka deriska laha Greega kuna sii jeeday dalkaasi iyadoo siday 34 tahriibayaal isugu jiray jinsiyada kala duwan kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen 14 Masaari ah oo dhammaantoodba geeriyooday. Markii la helay xogta shilka, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Badr Abdulcaati ayaa faray safaaradda Masar ee Greega in ay si degdeg ah ula xiriirto mas'uuliyiinta Greega si loo bixiyo gargaar kasta oo suurtagal ah oo dadka la badbaadin karo isla markaasna loo dedejiyo soo celinta meydadka la helay kadib markii la dhammaystiray habraacyada dhanka qaanuunka. Wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in safaaradda Masar ee Athens ay la xiriirtay qoysaska dadka dhintay si loo diyaariyo in meydadka dib loogu celiyo dalka iyadoo mar kale ugu baaqday muwaadiniintooda inaysan ku dhicin shabakadaha tahriibka sharci darrada ah si loo badbaadiyo noloshooda isla markaasna ay adeegsadaan wadooyin sharci ah oo socdaal si looga fogaado soo noqnoqoshada dhacdooyin caynkaasiya. Jasiiradda Crete ayaa noqotay marin muhiim u ah tahriibayaasha u gudbaya Yurub iyagoo ka imaanaya Liibiya inkastoo Greega uu hakiyey codsiyada magangalyadoonka ee dadka soo galaya waddankaasi ee ku imaanaya waddadaasi tan iyo bishii July xilli ay si weyn u kordheen imaatinka dadka ee sanadkan. waxaana hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ay sheegtay in 16,000 oo qof ay soo gudbeen kuwaasi oo soo gaaray waddanka Greega. oo tahay haddaba wixii macluumaad ah ee la xiriira muwaadiniinta kale iyo in Soomaali ku jirto arrinkaasi waynu eegi doonaa wixii ka soo kordha oo baaritaan ayaynu ku haynaa. haddii waxay ka soo kordhaan barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii Allah idmo. markana waxaynu eegaynaa Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa inay aad uga qaraacsan tahay walaacna ay ka qabto heshiis ballaaran oo iibka dayuuradaha casriga ah oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Qatar. heshiiskan ayaa waxaa la sheegayaa in dayuuradaha casriga ah looga iibinayo Qatar waxaana ka mid ah dayuuradda F-35 oo ilaa hadda Israa'iil ay tahay cidda kaliya ee ka haysata gobolka Bariga Dhexe. warbixin amuurahani ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdifataax Mawlid Xaaji Cabdi. Israa'iil ayaa waxaa ku sii kordhaya walaaceeda ku aadan wadahadalo dib loo bilaabay oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Qatar kuwaas oo la xiriira suurtagalnimada in Dooxa laga iibiyo diyaaradaha dagaalka ee casriga ah ee F-35 sida uu baahiyey telefishinka Kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay.
arrintan ayaa imaanaysa xilli Washington ay qiimeynayso heshiisyo hub oo waaweyn oo ka dhacaya bariga dhexe kuwaas oo saameyn kara awoodda military ee Israa'iil. Sida lagu sheegay warbixinta, Qatar ayaa mar kale dib u soo cusboonaysiisay codsi ay ku doonayso inay ku iibsato diyaaradaha casriga ah kadib markii codsi ka la mid ah la diiday 5 sano ka hor. Markan si kastaba ha ahaatee, xiriirada u dhexeeya mas'uuliyiinta Qatar iyo kuwa Mareykanka ayaa durba bilowday. Mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa sidoo kale si dhow ula socda horumaro kale ee la socda arrintan oo ay ka mid yihiin heshiis difaac oo Mareykanka iyo Sacuudiga u dhexeeya, suurtagalnimada dib u bilaabista iibka hubka ee Imaaraadka Carabta, iyo xitaa suurtagalnimada iibka hub mustaqbalka laga iibiyo Turkiga. Telefishinka Kanaal 12 ayaa sheegay in Israa'iil ay ka baqayso in hub casri ah oo baaxad leh Mareykanku ka iibiyo gobolka, taasi oo wiiqi karta faa'iidada military horumarsan ee dhanka ciidanka cirka Israa'iil ku leeyihiin gobolka. taas beddelkeeda hay-adaha difaaca Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay diyaarinayaan dalabyo ay u gudbinayaan maamulka Mareykanka kuwaas oo lagu raadinayo awoodo dheeraad ah. Dalabyadaasi waxaa ka mid ah 2 cutub oo diyaarado dagaal oo casri ah oo kala ah F-35 iyo F-15I oo ah nooc si gaar ah loogu habeeyey baahiyaha howlgallo ee Israa'iil, sidoo kale heritaan ballaaran oo hub casri ah iyo nidaamyo la xiriira. Warbixintu waxay xustay in mas'uuliyiinta Israa'iil ay rumaysan yihiin in uu jiro waqti kooban oo lagu dhaqaaqi karo ka hor inta aysan boosaska wax soo saarka buuxin dalal kale oo iibsadayaal ah. Sida lagu sheegay warbixinta, arrintu hadda waxay ku xiran tahay in hoggaanka siyaasadeed ee Israa'iil ay awoodaan inay si degdeg ah go'aan u gaaraan, isla markaana ay galaan wadahadallo xooggan oo ay la yeeshaan Washington si loo xoojiyo in baahiyada military ee muddada dheer ee Israa'iil la daboolo marka la eego isbedelada ku socda iibka hubka Mareykanka ee gobolka. Cabdifataax Mariid Xaaji Cabdi, HBN Online TV. وهجاج عبد الفتاح آد بو بحسي هي أو وربحين تاسيه إنه سو دياري مركان وحينو إيجينا حيسد كده على وصن روشكا يو ميدوغو يوروب أيا عركا كشريران هدبا ما أنت كلن أرمها لي حريرها أيا لغو قبتي ودك فيلان وحانا وحيابيه كصوب حي كمدها إن ودمدا يوروب غارهان كوا نكا باريغا دفيس أقوتان سياسي دفاعان روشكا haddaba wararkii ugu dambeeyay amuurahan 8 hogaamiye oo ka tirsan wadamada midowga Yurub ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Helsinki ee dalka Finland waxay go'aamiyeen in la adkeeyo difaaca xadka bari ee midowga Yurub taasi oo ay ku sheegeen in ay tahay mudnaanta ugu sarreysa xilli ay sii kordhayaan walaacyada la xiriira qatarta Ruushka. bayaan kama dambaysa oo ay saxiixeen hogaamiyaasha ayaa lagu sheegay in xaaladda amni ay u baahan tahay in xadka bari ee midowga Yurub la siiyo mudnaan gaar ah iyadoo loo marayo hanaan howlgal isku dhafan wada shaqayn iyo qorshayn dhinacyo badan leh. Ra'iisul wasaaraha waddanka Finland Petteri Orpo ayaa warbaahinta u sheegay in Ruushku weli uu yahay waa sida hadalka u dhigaya qatar taagan maanta berri iyo mustaqbalka la saadaani karo iyo guud ahaan qaaradda Yurub. bayaan ay wadajir u soo saareen hogaamiyaasha Finland, Sweden, Estonia, Latvia, Bulgaria, Romania iyo Lithuania ayaa lagu sheegay in Ruushku yahay qatarta ugu weyn ee tooska ah isla markaasna muddo dheer ku wajahan amniga, nabadda iyo xasiloonida gobolka Yurub iyo Atlantikada. hogaamiyaasha 8 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa kulankooda ka dhacay caasimadda Finland ee Helsinki waxay ku falanqeeyeen sidii loo xoojin lahaa difaaca xadka bari ee midowga Yurub iyo tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah ka hortagga qataraha amni ee kordhaya. waa tahay qodobkaas halkaas aynu kaga gudubna waxaan u gudbaynaa laanta sirdoonka Israa'iil ee Shin Bet oo soo saartay digniin la xiriirta suurtagalnimada Israa'iiliyiinta in lagu afduubto gudaha Israa'iil iyo dibadda. Xamaas oo caawa soo saartay sidoo kale war weyn oo la xiriira mowqifkooda ciidamada caalamiga ah ee lagu wado Mareykan Gaza in la geeyo iyo sheekadii ugu dambeysay oo aan kugu hayno sheeko xiiso leh oo ku saabsan rakaab aan loogu talagelin oo lagu arkay isagoo dhex fadhiya dayuuradda KLM ee dalka Holland laga leeyahay. waxaynu eegaynaa haatan war dhiil la xambaarsan oo ka soo yeeray dhanka Israa'iil oo la xiriira suurtagalnimada Israa'iiliyiin
in lagu afduubto dibadda iyo weliba gudaha Israa'iil. Aynu eegno wararkan iyo warbaahinta Israa'iil waxa ay ka qortay. madaxa hay-adda ammaanka gudaha Israa'iil ee Shin Bet ayaa kulan sir ah oo la yeeshay golaha wasiirada wuxuu ku bixiyay digniin ku aadan korar cabsi leh oo ku yimid isku dayada lagu afduubanayo Israa'iiliyiinta gudaha iyo dibadda. taliyaha cusub ee Shin Bet David Zayni ayaa sheegay in isku dayada afduubka aysan hoos u dhicin balse ay si weyn u kordheen. arrintaasi oo lala xiriirinayo qiimaha sare waa sida dalka u dhigaya ee la bixiyay si loo sii daayo maxaabiista Israa'iiliyiinta. hadalladan ayaa waxa uu ka jeediyay kulan wasiirada ammaanku ay yeesheen Khamiistii, laakiin haatan macluumaadkaasi saxaafadda loo dusiyay. wargeyska iyo daco taxranood ka soo baxa Israa'iil ayaa daabacay caawa isagoo soo xigeenaya ila siyaasadeed oo sare in ay tani ahayd markii ugu horeysay ee madaxa laanta sirdoonka Shin Bet hadalla caynkan uu ka jeediyo kulamo albaabadu ay xirnaayeen, taasi oo qayb ka ah faallooyinkiisa ku saabsan qataraha soo kordhaya ee afduubka Israa'iiliyiinta gudaha iyo meelo kale oo caalamka. sidoo kale golaha wasiirada Israa'iil ayaa waxay si qoto dheer uga hadleen qaanuunka dilka ee la qorsheeyay in lagu fuliyo maxaabiista Falastiiniyiinta, kaas oo haatan horyaal baarlamaanka Israa'iil loona codeynayo akhrintii labaad iyo tan saddexaad. waa tahay xagga qasa aynu eegno iyo war weyn Xamaas ka soo baxay. Xusaan Badraan oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ururka Xamaas ayaa sheegay in Falastiiniyiintu ay mas'uul ka noqon doonaan sugidda ammaanka gudaha Marayka Gaza, halka doorka dhinacyada shisheeye ku koobnaan doono kormeerka xuduudda Israa'iil. waraysi uu siiyey wakaaladda wararka Ruushka laga leeyahay ee Sputnik, Badraan wuxuu xaqiijiyey in dhammaan kooxaha Falastiiniyiinta ay ku heshiiyeen mowqif midaysan oo ku saabsan joogitaanka ciidanka shisheeye ee Gaza, isla markaasna Falastiiniyiintu ay si madax bannaan u maamuli doonaan Marayka Gaza, iyagoo kaashanaya guddi khubaraha si loo xaqiijiyo ammaanka gudaha, isagoo adkeeyey in ciidamada caalamiga aysan wax door ah ku yeelan doonin arrintan. Badraan ayaa sidoo kale tilmaamay in Xamaas ay door bidayso in ciidanka caalamiga ay ka mid noqonaan dalal saaxiib lah shacabka Falastiin, maadaama ay adag tahay in la qiyaaso ka qaybgalka dalalkii taageeray Israa'iil intii lagu jiray dagaalkii Gaza. dhinaca kale wuxuu sheegay inay si dhab ah u muuqato inuusan jirin dal diyaar u ah ka qaybgal dhab ah, maadaama qof walba buu yiri uu og yahay adkaysiga xaaladdan iyo sida ciidan aysan u doonayn inay la dagaalanto Falastiiniyiinta. haddaba halkan aynu dul istaagno intaan warkan la xiriiro warkan idin soo gudbin. mas'uulkan hadalkiisa wuxuu u dhacayaa biidhiciisu Xamaas inay soo ka dhigeen talabaadna ay tahay ammaanka gudaha Marayka Gaza inaysan cid ahayn Falastiiniyiintu aysan yeelan doonin. macnaha shaqada caadiga ah ee amniga iyo booliiska iyo sugitaanka amniga Falastiiniyiinta ay yeelanayso ku leeyahay. ciidanka caalamiga xuduudaha ilaalin doonaan. macnaheedu waxa weeye Israa'iil iyaysan soo weerarin Gaza, annaguna weerar mayno, way noo dhaxaynayaan macnaha ayuu ula jeedaa. laakiin ereyga ugu dambeeya ayaa cajiib ah. annaga wararka iyagu waa warar isku xiran. warkan wuxuu ku xirmayaa warka soo socda. muxuu ku xusay qaybta ugu dambaysa mas'uulkani? wuxuu leeyahay ma jirto cid doonaysa inay ka hor timaado iska caabinta Falastiiniyiinta. ereyga marka khubarada maxay u fasirtay? waxaa loo fasirtay qorshaha Israa'iil ay doonayso ciidankan inaysan cidna doonayn inay samayso, oo muxuu yahay hubka in laga dhigo iska caabinta Falastiiniyiinta. maxaa caddaynaya arrintan oo kale? wasiirka arrimaha dibadda waddanka Masar hadal kulul buu yiri toddobaadii ka hor. wuxuu yiri Israa'iil wixii ay ku guulaysan weyday 24 bilood ayay doonaysaa buu yiri annaga inaan u qabanno. oo maxay tahay arrintaasi? iska caabinta hubka in laga dhigo. maxaa yeelay Israa'iil geed dheer iyo geed gaamo bay fuushay buu yiri qabiir military armahani ka hadlayay sidii iska caabinta hubka ay uga dhigi lahayd, laakiin arrintii way ku guul daraysatay. laakiin Netanyahu marka muxuu ka fakarayaa hadda? ciidamadan la keenay inay hubka ka dhigaan iska caabinta. marka mas'uulkan hadalkiisa muxuu leeyahay ma jirto cid doonaysa inay ka hor timaado iska caabinta. khubarada maxay leeyihiin yaa meesha aadi karaa la yiri marka Al-Yaasiin baa ka soo horeeyay ciddii dagaal la aadaya. maxaa marka dhacay marka? warkan ninkan uu sheegay mas'uulkan sare iyo warkana isku xiran. maanta magaalada Dooxa waxaa ka dhacay shir Maraykanku soo qaban qaabiyey. 40 wadan baa la isku keenay.
waxaa la doonaya ciidamo la geeyo marayka Gaza maxaa laga filaya marka waddan kasta inuu yiraahdo 2,000 baan diyaar la ahay 1,000 baan diyaarinayaa 500 baan diyaarinayaa 5,000 baan diyaarinayaa 40kii waddan cid tiri hal askari baan geynina marayka Gaza waa la waayay bal amurtan iyo yaabkan oo kale haddaba aynu eegna sheekada amurtan laga qoray weli warbaahinta Israa'iil baa qoraysa shirkan maanta ka dhacay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa looga hadlayay qorshaha lagu dhisay ciidan amni oo caalami ah oo ka howlgala Gaza laakiin waxaa lagu guul daraystay in la gaaro go'aamo muhiim ah oo la xiriira dirista ciidamada iyo waajibaadkooda sida uu sheegay mas'uul reer Yurub ah oo la hadlay wargeyska The Times of Israel halka markaan dul istaagno maxaa la isku afgaran waayay waajibaadka maxaa loola jeedaa marka waajibaadka maraykanka waxaa laga kari lahayaa war ciidankan waxa ay u socdaan cadee haddii ay u socdaan amniga inay sugaan waa la yaqaanaa xuduudaha Israa'iil xuduudeeda ha tagto 7 Oktoobar ciidanka la geynaya xuduudaasi ku sugnaanayaan dhanka Masarna xuduudaas la geynaya xamaasina ku duuli maysa Israa'iil ma soo duuli karto maxaa marka la isku qabtay waajibaadka ciidanka aan ku socono warbixinta mas'uulkan midowga Yurub ka tirsan ayaa waxa uu sheegay in shirku uu ku bilowday bandhig uu jeediyay sarkaal sare oo Amerikaan ah kaas oo sharaxay yoolka Mareykanka ee ku aadan ciidanka la qorsheynayo iyo hawlgalka loo arkay inay fulin doonaan wuxuu intaasi ku daray in doodu ay ahayd si wadida kulanka hordhac ah iyo weliba kulamada xiga oo lagu wado inay ka dhacaan Washington sida uu sheegay mas'uulkan dalalka ka qayb gala shirka markaas waxay weydiiyeen Mareykanka inay cadeeyaan haddii Mareykanka weydiinaya inay cadeeyaan haddii ay daneynayaan ka mid noqoshada ciidankaasi iyo inay diyaar u yihiin laakiin waxa la sheegay inaysan si rasmi u xaqiijin ka qaybgalkoodii dhammaan 40kii waddan golaha ayaa sidoo kale wuxuu ka doodayay tillaabooyinka xiga oo ay ku jirto in la iskugu soo laabto kulan kale bisha January kulankaasi oo la isugu yeerayo dhammaan taliyaasha ciidamada inkastoo weli aan la go'aamin goobta uu ka dhacayo mas'uulkan reer Yurub ayaa waxa uu sheegay in weli aysan jirin jawaab cad oo ku saabsan waajibaadka ciidanka la qorsheynayo iyo inay ku lug yeelan doonaan hubka dhigista Xamaas iyo in kale ma arkaysaa marka warka marka isku xiran yahay asbaabta HBN aad ugu xirantihiin intii naas dhowrka boqol oo kuna macnaha warba warku ku xiran yahay weey maxaa lagu soo gabagabeeyay warka waajibaadka ciidanka in la cadeeyo iyo in ay ku jirto hubka dhigista iska caabinta marka waddan kasta marka muxuu leeyahay haddii ay ku jirto hubka dhigis annaga meesha isma aadayno shirkan ayaa ka maqnaa maanta Turkiga lama oga sababta uga maqan yahay malaha waxba aan cadayn marka waayahay wuxuu ku soo koray arrintaas barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa sheekada ugu dambeysay barnaamijka ayaan haatan u gudbaynaa aalaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh marka lagu leeyahay rakaab dabcan diyaaradda markuu raacayo tigidhkiisi iyo baasaboorkiisi iyo fiisihiisi waa inuu wataa laakiin arrin la yaab leh ayaa ka dhacday diyaarad hawada sare maraysa oo weliba 50 cagood ku socota raalli ahaada waa 30,000 aynu ku soconno sheekadane waxaa leeyahay dhacdo aan caadi ahayn ayaa ka dhacday diyaarad ay leedahay shirkadda KLM ee waddanka Holland kadib markii lagu arkay diyaaradda gudaheeda jiir ama dooli taasi oo cabsi iyo yaxyax iyo kala carar gelisay rakaabkii 250 qof ayay diyaaraddu siday diyaaraddan waxay ku sii jeeday jasiiradda Aruba ee badda Caribbean-ka ee hoos timaada boqortooyada waddanka Holland laakiin diyaaraddu hawada sare ku jirta ayaa waxa la arkay jiir dhex socda diyaaradda waliba waxa la yiri inkastoo uu yaraa qalqal weyn ayaa diyaaraddii galay safarkeedii maadaama la sheegay halistu inay tahay ma ahan oo kaliya inuu qof qaniino iyo inuu cuntada markaasi sumeeyo laakiin waxa la yiri waxa imaan karta inuu qaniino fiilooyinka iyo xargaha korontada ee diyaaradda taasi oo sababi karta cilad farsamo diyaaradda oo dul mareysay badweynta Atlantikada kuna duuleysay joog dhan 30,000 oo tallaabo ayaa shaqaalihii diyaaradda waxa la sheegayaa in ay go'aansadeen in degdeg diyaaradda loo dejiyo diyaaradda ayaa markii cagaha dhulka dhigtay waxa laga dejiyay dhammaan rakaabkii waa la nadiifiyay jeermiskii baa laga dilay rakaabkiina waxa loo diyaariyay hoteelo iyo waliba duulimaadyo kale oo bedel u ah
afayeen u hadlay shirkadda KLM ayaa ku tilmaamay dhacdadan mid gaar ah isagoo xaqiijiyay in amniga rakaabka uusan khatar gelin baraha bulshada ayaase waxaa ka curtay hadallo isugu jira kaftan iyo walaac iyadoo qaar ay ku diganayeen shirkadda oo ay lahaayeen sidee loogu ogolaaday rakaabkan aan wadan tigidhka fiisaha iyo weliba baasaboorka dhacdadan ayaa waxay noqotay mid baraha bulshada aad u qabsatay waa hagaag inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgelyo Somali Meat Company hilib saafiyo sugan oo la hubo waa Somali Meat Company Somali Meat Company waa shirkadda ugu weyn hilibka Soomaaliya waxaana ay ku hawlan tahay inay gaarsiiso hilib tayadiisa caafimaad la hubiyay soona maray baaritaano caafimaad oo guuleystay waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn bariga Afrika iyadoo leh qaybaha warshada hilibka geela warshada hilibka looda warshada hilibka ariga iyo warshada lafa bixinta hilibka waxaana ka hawlgala shaqaale aqoontooda iyo xirfadooda aad loo diyaariyay soona maray baaritaano caafimaad Somali Meat Company waxay sidoo kale hilibka u dhoofisaa dalalka dibadda sida dalalka Afrika Khaliijka dhawaanna waxa ay geyn doontaa dalalka Yurub waxa ayna haysataa shahaado hilib oo caalami ah sida Halal Certificate iyo ISO Certificate shirkaddu waxay Muqdisho ku leedahay ilaa iyo 6 goobood si dadka loo gaarsiiyo adeeg hilib oo fresh ah haddaba booqo xarumaha kala duwan ee Somali Meat Company ama la xiriir ciwaanada shashada kaaga muuqda ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay Safari Remit